maanta oo bishii shan tahay bishii sideedaad 2026 waxaa ciidamada difaaca Puntland ay ka fuliyeen howlgal qorsheysan magaalada Gaalkacyo taasoo looga howlgalay xere halka ku taal oo muddadii u dambeysay dowladda federaalka ay ku soo daabuleysay hub iyo saanad iyo ciidan ay ugu tala gashay inay ku khalkhalgeliso amniga iyo xasiloonida Puntland. waxaan marar badan la wadaagnay dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadka jecel ka shaqeynta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliyaba falalka ka socda madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu ku khalkhalgelinayo kala dambeynta iyo nabadgelyada yar ee tukubaysay ee Soomaaliya ka jirta guud ahaan iyo gaar ahaan nabadgelyada muddada dheer ka jirtay deegaanada ay ka mid yihiin Puntland oo ahaa meel muddo xasiloona wuxuu ka shaqeynayay sidii uu khalkhal amni ugu abuuri lahaa isaga oo dad dana gaar ah leh ay ku been abuurteen dadka iyo dhalinyarada reer Puntland khalkhalna ku geliyeen iyo kuwo laga keenay deegaano kale oo magaalada Muqdisho ah oo muhiimadeedu ay tahay in Puntland oo mar walba u taagan nidaamka dawliga ah iyo ilaalintiisa iyo federaalnimada in laga dhigo meel aan kala dambeyn ka jirin oo dowladnimo ka jirin si dowrka ay ku leedahay dowlad dhiska ay meesha uga baxo dalkan uu ku noqdo gacan aan habboonayn oo si gurracan loo maamulay. wuxuu mararka qaarkood ku beer la xawsanayay inuu ciidamo dowladda federaalka halkaa ku abuuray. ciidamada Puntland waa ciidamo Soomaaliyeed ee la dagaalama argagixisada burcadbadeeda dib u soo celinta dowladnimada ee ka fuliyay deegaano badan oo koonfurta Soomaaliya ah ilaa ay qayb ka noqdeen in filadii Soomaaliya dib loogu soo celiyo maamulka dowladda oo ilaa iyo maanta ka arrimiya. ciidankaas waxaa maamulaya dowladda Puntland waxa ay mar walba u taagneed qaranka iyo dhismihiisa. ciidan meel kale ka imaanayo oo runtii maamul kale uu maamulayo maanta suuragal kama aha Puntland inuu ka jiro. Puntland waxay muddadan ka shaqeynaysay dowlad dhiska qodobada aasaasiga oo dadka Soomaaliyeed u dhiman inay qayb ka qaadato iyadoo markaas uu noqon doono dalku sida dastuurka ku qoran ciidanka difaaca Soomaaliya oo mid noqon doono ama national army. waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada geesiyaasha ah ee difaaca Puntland oo ka howlgala dhammaan geyiga Puntland oo la dagaalamay Daesh oo la dagaalamay Al-Shabaab oo mar walba u taagan xasilinta guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland. waxaan runtii uga mahadcelinayaa sareeyaasha iyo hogaamiyaasha ciidanka taliyaashooda sida habsamida leh ay kala dambeynta iyo dowladnimada u ilaaliyeen siday howlgalka u qorsheeyeen sida ay ugu guuleysteen in ay dowladda Puntland gacanteeda ku soo celiyaan xeradaas oo ahayd xero dowladda Puntland ay maamusho laakiin muddadii u dambeysay ka shaqeynaysay nidaam khaldan. waxaan uga mahadcelinayaa shacabka reer Puntland meel kasta ay joogaan isgarabtaaga ciidankooda iyo go'aanada dowladda sida ay u fuliyeen. waxaan sidoo kale ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysa halka uga soo jeedinaya ama faraya inay xasiloonida ilaaliyaan in dhaawaca la daryeelo in maxaabiista si fiican loola dhaqmo in aan wax khalkhal ku saabsan ama tacaddi ah loo geysan guud ahaan dhalinyaradaas la khalday halkaas lagu qabtay. waxaan sidoo kaleeto halka baaq ugu soo jeedinayaa dhammaan dhalinyarada kaleeto ee gobollada Puntland jooga